war degdeg ah daawadayaal shir xasaasi ah oo xalana uga furmay xubnihii mucaaradka ee golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ugu dambeyn madaxweyne waa musharax madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Maxamed Xuseen Roble iyo xubnihii mucaaradka oo loo ogolaaday inay gudaha u galaan xayndaabka xalane gaar ahaan the airport oo ah meesha ay ku shirayaan iyaga iyo sidoo kale Axmedoobe iyo Saciidani oo halkaas ku sugan haddaba daawadayaal waxaan muuqaalkan idinku soo gudbinayaa shirka xasaasiga ah ee halkaas ka socda sida ay ku suurta gashay in ugu dambeyn iyagoo dhowrkii maalin ay ugu dambeysay loo diiday inay gudaha xayndaabka xalana galaan ay markaan u fududaatay inay gudaha u galaan xogta kulanka halkaas ka socda waxyaabaha ay ka hadlayaan kulankaasi farmaajo qayb ma ka yahay wararkii ugu dambeeyay ayaan daawadayaal muuqaalkan idinku soo gudbinayaa balse akhyaarta qiimaha badan marka hore waxaan idin ka codsanayaa muuqaalkan haduu idin soo gaaro inaad meel dheer inoo gaarsiidaan halkan aad ku soo biirtaan si aysan idin dhaafin wararka iyo barnaamijyada degdega ah ee aynu daawadayaasheena halkan kula wadaagno haddaba soo dhawaada sida daawadayaal barnaamijka hordhiciisaba aad ku daawateen xayndaabka xalane gaar ahaan hoteelka la yiraahdo the airport oo maalmahan caan ka noqday baraha bulshada dhexdeeda waxa ugu dambeyn gudaha u galay sida halkan aad ka aragtaanba madaxweynihii hore ee Soomaaliya ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka uu Maxamed Xuseen Roble ka mid yahay oo dhammaan ka qayb galaya shir xasaasi ah oo halkaas ka furmaya haddaba maxaa shirkaasi looga hadlayaa oo u dhaxeeya golaha mustaqbalka xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ka kooban Jubbaland iyo Puntland iyo madasha samata bixinta mucaaradka ayaa galabta shir xasaasi ah oo uga furmay gudaha xirada xalane ee magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale looga hadlayo xaaladda cakaran ee dalka xubnaha mucaaradka oo ay ugu horeeyaan madaxweyne hore Sheekh Shariif ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre iyo ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Roble ayaa goordhow gudaha u galay xayndaabka garoonka xalane iyaga oo uu hogaamiyay ama u hoggaansamay ayaa la yiraahdaa habraaci amniga ee xirada ee lagu xakameynayay ka hor inta aan la gaarin 5 galabnimo horta waxay fuliyeen amarkii dawladda iyo habraaci loo sameeyay in garoonka aadan cadde albaabka ay rabaan Sheekh Shariif iyo Roble iyo Khayre meeshii rabaan inay ka galaan waxa loo sheegay 12 saac oo galabnimo wixii ka xageeyay lama gali karo qam way xirantahay marka ka hor 8 saac ay galeenba waxaana golaha haatan u socda shir xasaasi ah oo ay la leeyihiin Axmedoobe Saciidani oo sidoo kale marka iyagu kula shiraya hotel ku dhex yaala gudaha xalana oo loo yaqaano the airport afayeenka madasha samata bixinta oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa sheegay in shirkan uu ka mid yahay kulamada caadiga ah isla markaana uu hordhac u yahay shirka guud ee ay dhawaan la yeelan doonaan madaxda filla Soomaaliya shirkan waa shirkii golaha mustaqbalka iyo sidoo kale shirkii ay yeelan jireen ee caadiga ahaa ayuu yiri afayeenka oo hadlay dhinaca kale waxa shirkan shir ka horeeyay kulamo xasaasi ah uu dhaxmaray madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo sidoo kale kulanka maanta dhaxmaray madaxdii dalka soo martay ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland uu ahaa mid natiijooyin iyo sidoo kale waxyaabo waaweyn looga hadlay aynu barnaamijka ku soo gabagabaynaynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo golaha shacabka maanta ka jeediyay khudbadii ugu xasaasanayd ee baarlamaanka bal aynu wada daawano maanta waxaa laga doodayaa cutubka 6 ee qodobka 80 ilaa 180 qodobadan dhan waxay ka hadlayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa hay'adda ugu sareysa dalka waxa waajibaadkooda markii la isku daro ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha xilka xayuubinta madaxweynaha siinta kalsoonida golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad iyo in kalsoonida kala laabtaan in gudiyada madax bannaan ay ansixiyaan gudiyadaas oo ay ka mid yihiin golaha adeega garsoorka oo ah laanta saddexaad oo dawladnimada waxay soo saaraan xeerarka dalka lagu dhaqo waxay kormeer ku sameeyaan hay'ooyinka dawladda
noocyadooda kala duwan xeer federaal iyo xeer dowlad goboleed maanta maadaama laga hadlayo cutubka 6aad waxaa laga hadlayaa xildhibaanada shaqadooda iyo waajibaadkooda waxaan markii ugu horeysa ka codsanayaa xildhibaanada maadaama shaqadooda laga hadlayo in ayaga danta qaranka ay horumariyaan ayna ka horumariyaan dantooda khaaska ah maadaama shaqadeen baarlamaan ahaan laga hadlayo cutubka 6aad markaad fiirisaan qaabkii dastuurka hore ugu qoranaa iyo hadda waa kala duwan yihiin waxoogaa waa lagu wareeraa waxaa loo kala qiibiyey awoodaha 3 qiibada loo qiibiyey awood golaha shacabka si gooni ay u leeyihiin awood golaha aqalka sare si gooni ay u leeyihiin iyo awood kale leeyihiin yani mid kastaba awood ay isla leeyihiin dastuurka hore saa uguma qorneen haddaad akhrisaan waa ku wareeraysaan awoodda haddii aad meel ka wayso waxay ku jirtaa meel kale ku jirtaa ha ku wareerina meesha si fiican u fahma kulamada baarlamaankana waxaa way kulamo wada jira yeelanayaan kulamo gaargaar ahna waa yeelanayaan arrimaha waaweyn oo guddiyada iyo madaxweynaha maaragtay doorashadiisa iyo halka qaadistiisa kulamada wada jirka lagu sameeyaa intaa haddaan ka gudbo awoodaha baarlamaanka qaabka guddigu u soo qoray naftiisa xoogaho waxaad arki doontaan in la yidhaahdo faqradan iyo cutubkan waa la raray inkastoo guddigu ku jiro waxaan dareemay in xildhibaano badan ku wareersan yihiin waxaan guddiga ka codsanayaa mar labaad aan ku jiro in markii waxa laga bedelayaa qodobka intii lagu saxi karo meeshiis lagu saxo maadaama xildhibaanada macrifo ay u leeyihiin qodobka intaas haddaan ku gudbo ra'yigayga aan ka dhiifto qodobka 82 wuxuu ka hadlayaa nambarka xildhibaanadu ka hadlayaa golaha shacabka waa 275 golaha aqalka sarena waa 54 gobolada dalkana waxaa way 91 marka laga soo ambaqaado 18 waay waxaan rajaynayaa meeshan inkastoo guddiga ka tirsanay taladeedu waxay tahay 18 gobol inay lahaadaan senatarada markii loo qiibiyo gobol kasta wuxuu yeelanayaa 3 senator taasaan soo jeedinaa qodobka 84 qodobkan aad uu muhiim u yahay qodobkan xillumista xildhibaanka yuu ka hadlaa qodobkiisa f wuxuu sheegayaa xildhibaanka inuu wasiir noqon karin wasiirkana xildhibaan noqon karin qodobkan aad uu muhiim u yahay talooyin markii la soo sameeyey ummadda Soomaaliyeed dhan waxay isku raacday qodobkan labadan hay'adood in la qaado sababtoo waxaa meesha ka dhalatay waxa loo yaqaano dana isdiidan waxaa isdiidan wasiirkii oo xildhibaan ah haddana ka shaqaynayo xafiiskii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadii la xisaabtankii adkaana baarlamaankii waxa ku dhacaya macni daro xildhibaankana markii hore uu rabo inuu xildhibaan soo noqdo awoodiisa wuxuu soo gelinayaa inuu wasiir noqdo markuu wasiirka noqdana wuxuu isku dayayaa in markuu waayeen mucaaradu noqona markuu noqdana xukuumadii inuu difaaco bilaawa marka waxay noqoni xukuumadii inay shaqayn weyso qodobkan si fiican ugu fikira dalkan wuxuu xiiliyaa labadan awood kala saara kaas haddaan ka gudbo qodobka 85aad dhaarta xildhibaanada guddiga waan ka soo shaqaynay laakiin dhaarta hadda ku qoran dhaartii ku qorneed way dastuurkii 1960gii dhaartii hore ugu qorneeda ka macno weyneed markaan fiirino dhaartaas waxay kulminaysaa inaad ku dhaaranayso difaacayso dalka diinta iyo dadka kan waa ka maqan tahay marka waxaan isleeyahay dhaartii hore iyo maaragtay baaxadeeda aad iyo aad ugu weyneed qodobka 87 qodobkan in la sheego waan ku qasbanahay dastuurkii hore waxaa la ogoleen oo la diiday
in baarlamaanka madaxweynaha kala diri karo qodobkii waa laga saaray dastuurkii hore qodobkan si kale uu qoran yahay laakiin macnihii waay waxaa way madaxweynaha wuu kala diri karaa baarlamaanka 2 sano kadib haddii madaxweynihii kala diri karo baarlamaanka aan ognahay xaaladda dalkan ku jiro oo baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 8aad iyo 10aad aan jirno xaaladdaas waa adag tahay danta inaad ka fikirtaan arrintaasina aad iyo aad yaan ugu bogaadina taas haddaan ku gudbo baarlamaanka guddiga baarlamaanka adeega baarlamaanka qodobkii 9aad waxaan fakrada A B C in lagu daraan qabaa waxaa way xilka way sii joogaan ahliya xilkooda laakiin qofka hadduu doonayo inuu iscasilo way u bannaan tahay iscasilaad in lagu daro yaan soo jeedinayaa qodobka 9 awoodda baarlamaanka wadajirka waxaa laga ilooway dabcan waa laga ilooway waa ku jirtay hadda in lagu daro labada aqal yacni in awooddooda tahay doorashada madaxweynaha waa laga ilooway waa ku jirta in lagu daraan rajaynayaa waa mahadsantiin intaasaan kolay soo jeedin lahaa